waxa meesha ka soo baxana dee awalba wahabay ahayd kuma qanacsanin annaga joogayna waana joogi doonaa aad baa mahadsantiin wasiirka deegaanka iyo wasaaradda sportska ay loo noo meel iska keeneen wasiirka deegaanka wax soo gelinayaan u garan maayo shaqadan sportska goobtan waxa jooga 8 xubnood mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu cadeynaynaa inaanu diyaar u nahay shuruucda dalka inaanu diyaar u nahay xeerka ururka kubadda cagta Puntland leeyahay inaanu diyaar u nahay raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin magacay waa maxamed cali ciise ciiro annagu caawa halkan waxa u joognay inaanu doorashadii xiriirka ururka kubadda cagta Puntland ka qayb galno sida sharcigu ahaa guddi doorasho jiray oo la magacaabay waa lagu wada qanacsanaa listi baa la shaaciyay la ogaa listigii waxbaa laga bedelay farafarayntaasna waxaa sameeyey waa wasaaraddii khaasatan wasiiradda waxay samaysay inay listigii qayb ka mid ah dadkii bedesho sharcina uma leh listigiina waa la wada hayaa cid walba baraha bulshadana waa yaallaa waraaqday ku bedeshay ay awoodda ugu sheegatayna waa la hayaa tan kale waxaa jira in xubnaha kooxaha leh dadka qaybtood awood loo sheegtay oo askaro loo soo adeegsaday macnaha dad tuutaysan anigu askar ma oran karay askartu sharciga ilaalisaay hadda dadka la bedelay halkan xubnaha 8 xubnood baa jooga kongareskuna 15 buu ahaa xubnaha la bedelay waxaa ka mid ah ninka kan oo listiga ku soo baxay Mustafa Maxamed Axmed waxaa ku jira liiska Maxamuud Cabdullaahi Ajaxni la yiraahdo sharcina maaha waxyaabahaas aanu anagu doorashada ku qaadacnay farafarayntaas la farafareeyay hadda laftigeedii baa farafarayntii la wadaa anagu nidaamkii caadiga ahaa oo guddiga doorashada waa u mahad celinaynaa waana ku qanacsanahay aad baan ugu mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ay soo habaamuuska lahayd ay u wadeen laakiin de waxa dhacday wax sharciga ka baxsan institution doorasho soo galay weeye xeerar leh nidaam leh waan la ognahay nidaamkiina de waa la farafareeyay waana lagu ciyaaray marka hadda laftigeeda farafarayntii la wadaa waxaan rabaa marka inaan u sheego institutionska sharciyay leeyihiin sharciyadoodana waa la yaqaanaa wasaaraddu roolka ay leedahay waa la yaqaanaa sharciga ay leedahay mar haddii guddi doorasho meesha yaallo guddi doorasho iska leh ee xogayaa xiriirka markaas institutionkaas shaqaynaya midna ma dhicin in xogayaa xiriirka shaqadii ridda la yiraahdo kama soo gali kadib in garab gooniya inta garab la saaro la yiraahdo dadkii ay la dagaalamaan oo ay fowdeeyaan wax sharcigu qaban ma annagu waxaan u diidaynaa nidaam darrada waxa kan waa soo maamulay waan ku dhex jiraa dhiigayaga iyo dhacaankabayagii bay qabaan waana ku qanacsanahay waana u shaqaynaa anagu dhalinyaradayada waana u shaqaynaynay haddana waan rabnaa inaanu sii shaqayno laakiin nidaam darro de wax la aqbali kara maaha institutionskana farafarayn uma baahna dad dawladda ka tirsan baana farafaraynta wada oo wasiiro leh oo la og yahay oo la cadeynayo wasiirka deegaanka iyo wasaaradda sportska ay loo noo meel iska keeneen wasiirka deegaanka wax soo gelinayaan u garan maayo shaqadan sportska ninka kaliya noogu hanjabayay oo aanu isugu hanjabnay weeye war ka dhaxbax adigu wasiir baa tahay hawshatan si bareera halay kulli xaal nidaamkaas farafaraynta baan anagu aanu uga baxnay waxaan rajaynayaa in nidaamka lagu soo noqdo institutionka uu leeyahay institutionka waa institution Puntland intaasoo sana dhisnaa shaqaynayay roolka la kala leeyahayna waa la kala yaqaanaa wax cad weeye hada saxaafadda waa salaamaya dhammaan halka kan caawa waxa goobjoog ku ah 8 xubnood oo guddida doorashooyinka liiskii ay soo saareen ah baa halka kan jooga caawa waxa loo balansanaa doorashadii xiriirka kubadda cagta Puntland inay dhacdo taas uma qabsoomin liiskii guddida doorashooyinka ay shaaciyeen liis aan ahayn baa meesha la geeyay waxyaabaha aan anagu ku qaadacnay oo aan u tagi weynay waxyaabahaas ka mid ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo sharciga taqaana waxaan weydiinayaa liiskii guddida doorashooyinka soo saareen oo 15 ka ahaa oo 8 ka mid ah halka joogto digreetada wasaaraddu ay soo saartay sharciga bal cidii taqaana liiska la hayo iyo sababta loo bedelay iyo waxa lagu bedelay oo deadline-kuna u ahaa taay waxaan u deynayaa dhammaan madaxweynaha dawladda Puntland garsoorka iyo cid kasta oo sports oo wax ka taqaana saxaafadduna dhammaan way la socotaa liiskii 15 ka ahaa inaanu hadda meesha joogin goobtan waxa jooga 8 xubnood mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu cadeynaynaa inaanu diyaar u nahay shuruucda dalka
inaanu diyaar u nahay xeerka ururka kubadda cagta Puntland leeyahay inaanu diyaar u nahay dhammaan 15 xubnood ay guddida doorashooyinka ku dhawaaqeen oo aanad ugu mahad celinayo oo laakiin digreeto wasiir ay tiri qofka lagu bedelo meesha ay ka soo gasho ummadan weydiinayna wasiirka deegaanka sidoo saaxiibkay sheegay in foofilka uu weyn qofka farafaraynta ku wada waa usaga wasaaradda usaga ku laban wasaaradda deegaanka de ma garanayo sports meesha iska soo galaan gaalkacyo birta dheer ma gaari karo ninka odayga oo hadda sportska ku jira marka waxaan leeyahay wasiir adiga waxa lagu diray wadankii oo dhan baa wuxuu ku gala go'aya meel kasta togog baa ka dilaacay shaqadaadii togaga iyo wadanka inaad cimiladii iyo deegaanka u soo celiso bay ahayd taa horta halkaas aan kaga baxaya qodobka kale waxa weeye guddida doorashooyinka hadda jooga oo mahad celinayna sharci darrada ay caawa diideen kooramku wuxuu ku buuxsadaa 10 xubnood waxa meesha fadhiya waa 7 xubnood hadda waxaan u maqlaynaa in la yir baaj cusub baa la sameeynaya meel ay kaga qoran tahay 3 qof oo kale la keenaya bal ummadda Soomaaliyeed dadka meesha fadhiya baan u deynaya liisku wuxuu ku eekaa 18 bisha 18 bisha wixii ka dambeeyay 15 kaas la gudbiyay qofna lagu ma dari karo qofna lama reebi karo laakiin caawa saddexda la leeyahay qolo kasta la soo qoro baaja loo galiyo de sharciga meel ka soo garto garan maayo sportski waxaan aqoon baa la keenay waxyaabaha oo dhan anagoo aragna waxaanu diyaar u nahay mar labaad iyo mar saddexaad in sharciyada lagu soo noqdo sharciga hadii lagu soo noqdo doorashada diyaar baan u nahay waxa meesha ka soo baxana de awalba wahabay ahayd kuma qanacsanin annaga xaqa annaga joogayna waana joogi doonaa aad baa mahadsantiin